nabadda wadayaal iyo dhegaystayaal ba imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkeenii fiidnimo oo idinkaga imanaya Ciiltira Channel. Qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxda mucaaradka Soomaaliya oo Garowe ku sii qulqulaya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo albaabada u furay cid kasta oo doonaysa inay kala hadasho arrimaha doorashooyinka isla markaasna cabasho ka qabta hanaanka doorashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo ayaa isna waxa uu dareemayaa inuu dhagihiisa ku soo dhacayo filimbiga dhamaadka muddaxileedkiisa. Safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ku tagay dalka Djibouti iyo filashada laga qabo dhinaca ciyaarahana waxaad ku maqli doontaan hooyadii federaalka uu dhagaha ka garaacay mid ka mid ah awlaadii ka caasiyoobay. Daawadayaal imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi oo faahfaahsan. Waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo Xasan Bare Ducaale. Madaxda mucaaradka Soomaaliya ayaa sida daadka ugu sii qulqulaya magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, halkaas oo la rajeynayo inuu ka furmi doono shir lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee uu ismaandhaafka baahi ka taagnaa dharaarihii lasoo dhaafay. Shirkan Garowe ka furmi doona ayaamaha soo socda ayaa laga shaki qabaa inaanay kasoo qayb geli doonin madaxda dowladda federaalku. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa albaabada xafiiskiisa u furay daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu soo dhaweyn doono cid kasta oo cabasho ka qabta hanaanka doorashooyinka dalka, isla markaasna uu ku qaabili doono qalbi furan iyo gacmo furan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu hadda u dareemayaa dhawaaqa filimbiga ku dhacaya dhagihiisa, kaasi oo sheegaya dhamaadka muddaxileedkiisa. Madaxweynaha ayaa muddo badan waxa uu ku adkeysanayay inuu qaban doono doorasho qof iyo cod ah, balse waxa uu dhowaan aqbalay doorashooyinka dadban, taasi oo u muuqata mid laba af leh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu safar kooban oo muddo maalmaha qaatay ku jooga dalka Djibouti ee aynu jaarka nahay. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ayaamaha soo socda safar dhinaca dhulka kaga iman doono dalka Djibouti. Safarkan ayaa laga filayaa inay kasoo bixi doonaan go'aano masiiri ah oo ay ku farxi doonaan bulshada iyo shacabka Somaliland. Dhinacaasi iyo ciyaarahana waxaynu ku soo qaadan doonaa tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu marayaa meeshii ugu xiisaha badnayd kadib markii maalintii shalay ahayd dhagaha laga garaacay hooyadii federaalka Soomaaliya ee Puntland. Kooxdii ka socotay Galmudug isla markaana ah awlaadii ay dhashay hooyada federaalka balse ka caasiyoobay ayaa waxa ay hilfaha ku qaadeen garoonka Injineer Yariisow, iyadoo ay daawanayaan daawadayaal gaadhaya 30,000. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan wararkeenii fiidnimo ee idinkaga imanaya Ciiltira Channel. Waxaan idinla socodsiinaya anigu Xasan Bare Ducaale. Nabaday.